السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وجنكيga ayaan goob doona mar kale isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal kale cusub fadlan hadaa igu cusubtaa walaal subscribe iyo saar kamid noqo asxaabtayda dawr iyo joogtana muuqaalkan like iyo saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walba aad joogtiin waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirta channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub qisadan waa qisadii maama xaliimo idin ballan qaado oo idin dhahay qayb labaad ee qisadeeda laheyd weli ma aysan dhicin qof sidaan oo kale qisadiis inta soo dhamaato oo weliba 4 qayb kusoo dhamaato in qayb labaad ee taariikh nololeedkeeda ahaato maama xaliimana waa qofkii ugu horeeyay oo da ahaan ugu weyn maadaama ay tiri hadda 60 iyo dhowr sano jiraa qisadeedu dee waa qiso bilaabatay 1980kii qaybtan markaa waxaan ku bilaabayaa markii ninkii hore ee qisadii hore aan kusoo gabagabeeyay ay maama xaliimo kala tageen Allah u naxariistay oo dhintay waxaan galay tiri dee waa maamo aad u safar badneed oo socod badneed oo mar walba meel cag dhigi jirtay canugtii waayadii ka tuurtay hooyadeed meeshii ay joogtay ama gobolkii ay ayada ka soo jeeday oo hooyadeed waayada u dhiibtay canugtii koowaad ee markaasi gabadh ahayd ay haysatay waxay tiri waxaan soo galay dalka Djibouti dibaa u soo noqday Kenya horta joogtay way ka tagtay Djibouti aaday waxay tiri anigoo Djibouti iska joogo oo iska xamaalanayo oo gabadheedina hooyadii uga soo tagtay ayaa gabar aan saaxiibo ahayn waxay tiri waa inaad aadid meel qaxootiya waxbaan ku soo xareeyay waxbay ii soo dirtay tiri orodoo halkaasaad ka dhoofaysaay waan kuu soo dhameeyay orodoo meeshaas tag waa 1992 meesha marka waxay tiri waa meel ay yacni responsorkan may tiri aniga iyo kuwa ay walaalo yihiin ayay waxaan noo soo xareysay tiri waa waxaan lagu dhoofo adigu meeshii ayaan isku dayay tiri inaan tago waxaan gaari horta waxaan aaday tiri Soomaaliya imaaday kabacdi waxay tiri waxaan maray tiri Itoobiya adigu meelo badan ee cagta saartay ilaa ugu dambeyntii meeshii loogu sheegay inay tagto oo wax looga xareeyay ayay caga dhigatay waxay tiri markaa meeshii caga dhigtay waa meel qaxooti ah oo dadka laga dhoofiyo oo ay ka dhoofaan oo wax loogu soo xareeyo aniga waxayga wuxuu iska ahaayay tiri wax maalayacniya oo aan jirin oo markaasi aanan ii shaqaynaynin kabacdi halkiya waxa aan kula kulanay tiri Soomaali Oromo Ethiopian Allahumma musta'an Suudaantan dadka dhaadheer madmadoobe jirkooda qalqala adigu qowmiyad kala duwan aan meesha ugu tagnay aniga markii la dhahay de meesha waxba kuma yaalaan ayaan waxaan isku dayay in aan Kenya soo galo Kenya marka dhadhaab may tiri waxa loo soo qaadayaa qaxooti inay dhadhaab tiriyaan jeclahay meesha aan joognana markaan ma ahan ay tiri Kenya waa meel Ethiopia u dhow may tiri maaqan oo qaxootiya adigu xilligaas Soomaalidu meelo badan qaxootiyaashu ay ka jireen hadda meelo kooban oo la wada yaqaanay ka jiraan marka waxa dhacday tiri meeshii waxa joogo oo kor ka haysta nin Talyaani ah ninkaas Talyaaniga Kenya ka soo baxaa diyaaradu ku imaada waxa laga yaabaa maalinkii inuu Kenya inta ka soo baxo isla markiiba noo imaado ninka marka wuxuu dhahay Soomaalida meel kale oo qaxootiyo fog aan ka tuuraa Oromada iyo muxuu dhahay kuwa kale Etoobiyaanana dhadhaab iyo meelahaas aan geenaya intii bixayso oo safarkoodu dhamaanadana way bixayaan anagoo Soomaaliyo aan saas u badnayn waxa isku daynay tiri in aan dhuumano oo dadka Oromada waa isku egnahay kaarar iyo wax ka iibsano si aan Kenya iyo dhadhaabtii la sheegay aan u tagno kabacdi waxa dhacday tiri ninkani nooma raba anaga Soomaali ahaan in Kenya aan aadno oo xirooyinkaas qaxootiga aan aadno anagana waxa isku dayoonaa inaan ka dhuumano marka waxa isku egnahay tiri Oromada oo Oromadiyaan kaarar inta ka iibsanaya waxaan niri waa ina Oromadan kaarar ka iibsanaa si ayaga magacyadooda iyo aan ugu galno xagga Oromada marka dhowr gaariya u kireysano bariyo kale bixi rabaan laba wiil oo marka Soomaaliyo aad meesha looga yaqaanayo in badan joogay
ka mid ah. Ninkan talyaaniga markaa aad uu soomaalida u neceb yahay, mana rabo in aan halkaas aadno, qaxooti kala fog oo malaha aanba laga dhoofaynin uu rabaa inuu nagu tuuro. wiilashii soomaalida waxay oramadii ku dhaheen kaararkii markaa ka iibsanay waxaa igu duuduubtiinay dhaheen caws nagu duuduuba, sida waxaa naga dhigtiin aqal soomaaliga haddana waxyaabaha lagu samaysto, haddana teendha nagu duuba, haddaa dhimanana waa aan dhimanay. waxaa maqli jiray boorsada idhexgeli, oo markaa dhoofaysa boorsada idhexgeli. sheekada hadda waxay maraysaa coos in laysku duubo. wiilashii labadii wiil cooskiyaa lagu duuduubay, haddana aqal soomaaliga waxa lagu dhistaa lagu sii duuduubay, teendhaa lagu sii duuduubay. subxaan allah, sidii gaarigii lagu saaray. ninka markaa talyaaniga ah soomaalida aad u ilaalinaa, adigu dhowr 20 gaari camal oramada u baxayso. gaari kasta oo soomaali ay kortana nimanka oramadahan horjoogo u ah, soomaalidee ma wadno, wax soomaaliyana lama socdo dhaha aan ka dhaadhicin. soomaali meel walba ay joogto, basar iyo aqli iyo fawdo midna lagama waayo. waxay tiri waa soo dhaqaajinay, waxaan usoo soconaa xeradii Dhadhaab. markaan soo dhaqaajinay tiri saa usoo soconay ninkii talyaaniga ilaa anagoo jidkii ku jirna oo wuxuu aadayay tiri meeshii aan kasoo safraynay. hadee adduunyadaas anigu kalama aqaaniye, meeshii aan kasoo safrayn markuu aaday soomaalidii uu waayay. soomaalidii dadkii wuu weydiiyey meesha ku haray, anaga ma ogin, xalawaa ay joogeen, gooray baxeen ma naqaan. intuu xanaaqay oo wuxuu yiri jamboonti kasta wado kastoo lasii maraayo dadaa fadhiyo, gaariyaasha waa la baaraaho, hala ii baaro. markii la isku dayay in la baaro, anagana wadnaha farta ku hayno oo meel walba nagula istaajinayo na baaraayo, ninkii hadda talyaaniga shanta la galayay tiri ma cows dad lagu duubay iyo dad kaloo oramo isku ekaysiiyo isagu kalama yaqaani, oramadiina iridda u taagan yihiin oo dhahayaan war dadkan anaa wato oramo waaye muu ka hadli karaa. waa uu daalayay tiri siduu noo baaraay. adigu saa usoo soconay oo duur aan usoo soconay tiri. meesha aan ka nimidna iyada laftirkeeda iska duur iyo meel libaaxi ay degaan waaye. aan waxaan nimiday tiri intayna Dhadhaab gaarin meel kale oo qaxooti ay degaan, meeshii aan ku istaagnay tiri. anagu horta wadadii soo socono aan waxaan aragnay tiri bini aadan meeshaan ah oo suudaanta madmadoobee dhaadheer ah. qofkii arkee oo aanba dharba gashanayn. subxaan allah, waa dad cawaan ah. dumarkooda waxaa laga yaabaa inay qaybo asturtaan jirka, inta kale waa qaaweyn, nimankuna waa nuud. markaasaan wadadii inta Itoobiyaankii oramadii istaajiyeen ay waxay dhaheen waa fiirsanaynaa, na istaaji meeshiyaa cabaar sidii dad dalxiisa ay camal istaagnaanay. cawaantii aan bubursanay, xilligaas sawir ma uusan jirin, waa iska daadaawanay. adigu markii dambe lugtiyaan soo furnay tiri. lugtii markaas soo furnay intaana Dhadhaab soo gaarin aan meel kaloo qaxootiya magaceeda ay ii sheegtay, hadda ma xasuustee, aan ku deganay tiri. meeshii markaan ku deganay waxaan dheerinay haye Soomaali ma joogto, xoogaa meel Soomaali ay joogto waaye. Soomaaliya joogta, aniga yaa iga soo horeeyay, cidna adiga kaama soo horeyn, gruubkii yimid. meeshii waxaan ka baaranay meelaan ka degno. waa meel Itoobiyaan iyo Suudaan iyo Oromo ayaduna ay nagu soo horeyso. waa maalinka waxay tiri nin Itoobiyaan ah aniga wiil Soomaaliya oo aan isla socono oo qoorta naga jari rabay. ilaa waxay tiri buushashkii ama meelihii wax uga dhisnaayeen aan meel Soomaali leedahay u malaynee, annaga inaan leenahaan moodno waaba iska degnay. waaba kanoo baangad noola soo bax. aniga intaas sabay tiri basarey, anakii gadaal iska mariya ariya tiri raali noqo, hana dilin. sidii anikii isaga basareen. meeshii aan fiirnay meel lagu noolaa karo oo lasii joogi karo maba ahan. lacag wixii aan wadanay waa anagii gaarigii aan soo kiraysanay kusoo bixinay. ninkii aan waxaan niriyay tiri war dhegeyso, waa inaad Dhadhaabna geysid, halkaan ma aha meel aan joogi karno. lacagtii adigaa naga qaadatay, meel aan u noqono dib aan u fiirinana ma lahane. walle maama Xaliima inay meel walba lugta saartay. mar dhoof waa midhaa lama dhaho. ninkiyaa wuxuu yiri tiri war hee dhaha, gaarigan aan halkaas ka soo wadanay waa uu fadhiistay, mid Kenya gaarayana uma ekan, maxaan suubiyaa uma eka. anaa soo boodiyey tiri.
waxaan iri tiri insha Allah wuu noo soconayaa gaariga noo kici. Markaasuu wuxuu yiri tiri cawaanimo bal arag dadka diinta malaha aanba diinba haysan war waxaad aqrin jirteen idinku bal aqriya intaasoo gaarigu kaca. Markaasaa waxaan iri tiri waxaan aqri jirnay inay qiimo leeyihiin oo karaamo leeyihiin adaa arki doontide adigu gaariga noo kici. Okay uu yiri tiri wiilashii Soomaalida ila socdaan waxaan iri tiri waryaada iyo gabar meel dhexe naga soo raacday waryaada markuu gaariga asaga waxaan iri tiri bisinka u qabo bismillaah dheh annagana gadaalaan ka soo riixaynaa. Waxaan ku tusaa Ilaahay markii la baryo oo Ilaahay la tala saarto oo Ilaahay awoodiisa la warsado in wax walba ay ku hagaagayaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana wax walba uu awoodo. Gaarigiyaa waxay tiri bisinka u qaba inta dhan asaguna uu taagan yahay wixii aad aqri jirteen aqriya Ilaahay barya ma jirto quraan aqriya ma jirto rabbi tala saarta ma jirto oo qof iska jaahil ah wuxuu taagan yahay waxa aqri jirteen aqriya waranaga aqrinayna aan iri tiri maamo Xaliimo gaariga kici. Gaariga markuu kiciyo oo marshada meel dhijir uu ku rogay furihii oo wiilashii waxay tiri idinkana xoog u jiida anagoo dumar iyo rag isugu jirna gaarigii markuu furihii ku hagay oo aan irna bisinka u qabo waxay tiri ilaa wax bisin loo qabto waa iska barakeysan yihiin kaalaba gaarigii aduguba dami. Hal marow gaarigii kacay lugtii aan ka bilownay tiri ama socodkii aan ka bilownay safarkii xeradii qaxootiga waxaan ku tagnay tiri dhadhaabaa caga dhiganay. Markaa caga dhiganay adigu Kenya soo galnay tiri Kenya markaa soo galnay si nabadahan ku soo galnay tiri xoogaa markaan Kenya joogay ay naagtii haddana waxay tiri haddana waxaan kaaga xareeyay Tansaaniya iyo meelahaas South Africa miyaa iyo meelahaas orodoo haddana aad yaa rabbi waxay tiri maama Xaliimo dhoof haddii la raadinayo meel aanan u marin oo Ilaahay abuurta malaha bartiya waxay tiri safar kale ka bilaabay Tansaaniya aan tagay isla sii game waa xero qaxooti. Ilaahay wuxuu kuu qoro iyo Ilaahay wuxuu kuu qorsheeyo mar walba waxay ka awood badan yihiin oo ka fadli badan yihiin waxa adiga qorsheysanaysid. Meeshii markaa caga dhigtay waaba la isoo dhajiyay maama Xaliimo waaba kuu dhagsanahay tiri laakiin naag meeshaan oo haysata xeradii waxay tiri inta saas ii fiiriso naadiga uma qalantid inaa Mareykan aadide orodoo hoyro ii dhaaf. Maalin kale haddana tagay tiri waa lagu soo dhajiyay aalay dhahaa war aniga waa la isoo dhajiyay naagtii inta kor iyo hoos ii fiiriso waxay tiri adiga no noocaago kale Mareykan maba aadaan mana loogu talagelin mana ku siinayo safarkan magacaagana meesha waa ku dhagsan yahay laakiin ma dhoofaysid. Waa isaga soo tagay tiri kama quusto mar saddexaad u laabtaa. Markii saddexaad haddana sidoo kale adiga Mareykan uma qalantid mana lagu siinayo. Go'aan qaatay tiri go'aan markaa qaatay meeshii waxay tiri dee Tansaaniyadii isaga dalxiisay. Waa markii waxay tiri madaxweynaha Kenya magaca iigu sheegtay la dooranay xiligaas waa iska soo baxay tiri safar kale soo galay meeshii dalxiiskii waa isaga soo dalxiisay tiri markaan waayay tiri inaan Mareykan aado la isoo dhajiyo naagtii laf dhuun gashay igu noqotay. Waxaan imaaday dhahday islii Kenya aan soo caga dhigtay. Kenya markaan soo caga dhigtay waxaa deganay tiri kuwo qaraabo qansax iigu aadan dad adigu aan aqaano meeshaas waxa iiga bilaabatay tiri nolol guri aan waxaan la degay tiri gabdho aan isnaqaanay oo diintuna walaaleysay oo dee muslimnimo bas aan isku baranay gabdhihii aan la degay tiri markaan waxay tiri Kenya xoogaa joogay oo islii xoogaa shaqana ma lahan iska baada muundeynayo laakiin qof waxaan ahaayay tiri aad u asxaab badan waxaa dhacday tiri gurigii anigu iska degan nin Holland joogo maysan ii sheegin qaabka ay isku barteen maadaama sagaashamiyadii ay ahayd dee taleefana jiray iyo waxaas jirana ma dhihi karnee qaabkay iima aysan sheegin kuley iyadu nina isbaranay tiri Holland uu ku nool yahay. Ninkii wuxuu ugu yiri tiri fiisaan kuu soo diray fiisii wuu ii soo diray dhoofkii wuu ii dhameeyay dee qof aan Yurub iyo Mareykan loogu talagelin adigu ma qaadi kartaa qof bariiskiisa iyo risqiisa iyo saantiisa midna aysan meeshiiba ka qornayn ma qof gey karaa jira
wiilkii waa sheekaysana guuruu iga rabay wax walba markuu ii soo dhameeyey ee waxay tiri aan isdagaalne markaa isdagaalne aan waxaan erayay tiri fiisahaaga iyo waxaa la wareegaydna ma rabe hore leh ii dhaaf bas markaasuu wuxuu erayay tiri walaalay macaanto haddaadan i rabin xataa maa fii mushkila kida waxaan waa kuu xareeyey waa ay kuu soo dhammaadeen ee kaalayoo soo bax war waxaagana ma rabee aan erayay tiri walle dumarka qaar ama gabdhaha qaaraysan weligaaba hay rabin inta inaan ku bixi lahaa ayaa la dhihi lahaa waxaan dhihi tiri ani adigaba haddaa heshii weyne fiise kaa ah iyo safar aa soo dhammaysa ma rabee hore ii dhaaf walaaloo gacaliye okay yiri tiri muddo kadib wuxuu iga codsaday abaayo xaliimooy wixii maadaama adi aan kuu dhameeyey gabar ma ku dhoofsan karaa magacaaga maadaama fiisihii magacaaga kusoo baxayay safarkii gaaladii sidii oo wixii dhan magacaaga ay kusoo baxeen intii aanba maraayay qaabkii aan ku wadi lahaa war maa fish mushkilaa eriyay tiri waa aad ku wada kartaa ani adigu dee haddaa heshii weynay oo gabar walaashayoo soomaaliyeed ilaahay u calfo daacad ilaahay ha ku baxdo sidii uu gabar ugu watay tiri aniga dhulkaygiyaan dhabdhahay islii aan waxaan ka bilaabay inaan ku noolaado gurigaan gabdha la degay anigoo waxay tiri gurigii gabdha la degan oo aanan shaqaysanin oo isliidaydi isaga nool waxaa dhici jirtay tiri gabdho reer Dubai ah oo aan aqoon jiray xilligii aan Djibouti joogay kuwa Mareykan ku nool kuwa Yurub ku nool adigu marba meel lacag iiga soo diraa lacagtu marka waxay iigu soo dhacdaa shirkadda Dahabshiil shirkadda Dahabshiil mid fadhiyo ma iga heli karo hee tiri halkan waaye meeshay qisadu kala ka bilaabanayso ninkii waxay tiri lugta ii saare waa ku rabaa waa ku jeclahay waa iga dhex baxday lahantaa ma noolaa karo gabaraan ka helayaa tahay cid walba uu igu yaqaano waa uu ihaybiyaa xaafadda gabdhihii oo dhan waa igu barteen in ninkan uu nafta i ag saarayo uu iga helayo uu i jecel yahay markaasaa la iraa naa xaliimooy naa hebelaa soo socda markaasa aniguna waxay tiri ninka ma jecli rabitaan uma haayo waan karaasidaa markaasa waxaan iraa balaayo ku qaaday allalayaa dhoof ku siiyo kan mar un aad aragtidiisa ka dhuumatid oo oyeydan is aragay ninkuna maba quustay tiri mar kasta iyo meel kasta uu igu arko waa ku rabaahu u leeyahay tiri anigana maba rababa qof adigu aan nacday oo ilaahay dartiis u nacday aadan rabin oo jinniyahaaga iska naceen ma arki jirtay tiri anigu saasaan kuwaa isaguna waaba uu jecel yahay ninkii si kastoo xiriir igu soo bandhigto abadanay tiri waa aan diiday abadan wuxuu yidhaah waa ku cadayhaa waa ku madoobayhaa nolol daraan ku gelinaa markaasaa waxaan ilaahay tiri dhegeyso mid baa isoo silciyey mid baa nolosha saxariirteeda ibadoo ibaray nin kalena ma rabo mana isku aaminaye nabadgeli markaasuu wuxuu yiraa kii kuu bedeli lahaayaan aha kii malaha cagaha kuu dhaqi lahaayaan aha kii dhibka iyo duruufta iyo diifta aa soo martay ku ilowsii lahaayaan aha walaalay macaantooy marle i aqbal waa ka diidaayay tiri nin wax rabo waayee cagta ii saaray tiri shirkadda haddii aanba lacag u doonto asag leeba ii taaganba habeen iyo maalin wuxuu leeyahay tiri abaayo ee aqbal walaahi kuguma dheelaayo xumaankaa ma rabi mustaqbalkaaga inaan ku ciyaaro ma rabi mustaqbal sharaf lahaan kula rabaa inaan guri ku dejistaan rabaa inaan marwo kaa dhigtaan rabaa inaa ilmahayga hooyadood noqotidaan rabaa adigu nin raga wuxuu naa ku shukaansa lahaa kasto waa uu isku dayay aniguna intii gabar nin ay rabin ay ka carari karto waa ka cararay tiri markaasuu mararka qaar wuxuu yiraahdaa marle aqbalaadu ha kaa timaado adigaa dhihi doontid kana sidan u wanaagsan nin Soomaaliyeed ma ku jira ilaan waxay tiri waaba bilcagsi show ninkani waaba ninkii nin Soomaaliyeed ugu xumaaba asaguna wuxuu taagan yahay waxaanba ahaa ninkii nin Soomaaliyeed ugu fiicnaa oo aniga nin iga wanaagsan hooyaba maysan dhalin adigu waxay saas ahaataba wuxuu ninkii iga daba ordaba wixii lisku keen ogaadaba dee ninku rabo kaa daba ordaaya
waa la ogaanayaa oo la yiraaho naa Xaliimo ninkiyaa soo socdaa sankaraasada waa kula laboodaa alla balaaya qabahan yaa iga reeb iraaba maalin maalmaha kamid ay tiri habeenada kamid ah aan seexday aanoo ninkii diidaayo oo wax kasta oo wanaag ah uu ii soo bandhigay iyo si kastoo isugu kay ammaano isugu kay cadeeyo isugu kay cagaariye aan diiday waxaa dhacday tiri habeenada kamid ah aan seexday markaan seexday anigoo hurdaaya waxaan ku riyooday tiri abeeso ama mas asagoo saas jirkeyga u maraayo markaasaan af labadiis waa dhawaaqaa inta dhahay aan qayla dhaamiyey markaan qayla dhaamiyey gabdhihii ila hurday ileen gabdhahan la deganahay igu kaceen markaas ilaa naa maxaa kugu dhacay naa Xaliimo maxaa la qaylisay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim ayagana waa soo argagaxeen markaas waxaan ku iri maya waxba iguma dhicin waa aan cuudu bilaystay waa aan seexday waagii markuu ii bariyey ninkii aanba waxaan u rabaaba si qayra dabiiciya show ninkan waxay tiri waaba isixraba gadaalaan ka ogaa doonaaye qayra dabiici inuu macnaha isixray kuma dhaari karay tiri laakiin inuu sixir iyo bakti yaqaano waxaan ogaa doonaa 2019 waa mar dhow xilligaana waaba 90-meeyadiiba 92 94 96 meelahaas bisabdi 94 oo ninkan xiriirka ii soo bandhigana 96diina waaba markaan riyoonayo oo waxay tiri abeesadu ay basaas ii dulmarayso waagi markuu bariyay waxaa dhacday subaxii gabaraa waxay ii aqrinaysay horta ninkii aan rabaayo tiri aada u rabaa waxaan leeyahay tiri indhaha marka kala qaadid waad ogolaane waana aad guursanay waa ninkii zaa'idka u necbeed gabaraa marka waxay tiri meel bannaan isla fadhinayo tafsiir ay ii aqrinaysay ayadoo gabadhii tafsiirka ii aqrinayso kii ma soo mari karo hay tiri meesha intahaaday tiri hal mar aan u wacay tiri war hebelow hee kaalay waxaan iri tiri day soo ima rabtid nacam soo ma rabtid inaad i guursatid ood xaas kugu noqdo oo meel ila degtid markaasuu wuxuu yiri nacam ma ii ogolaatay asagii farxaad waaba u indha fariiray tiri qof wax uu malaha isdhahaya maba heli kartid haddaad boodidoo dhacdid maba heli kartid bo helayoo kale farxad markaasuu yiri haye Xaliimo maad ii ogolaatay markaasaan ku eriyay tiri haa waa ku ogolaaday ee soo carar oo xideena iga doono aniga waxaan ka soo jeedaayay tiri dad reer miya hooyaday waxay joogtaa miigii baadiyihii walaalahay miigii taar markaas laga wacaayo malahan waxay tiri taleefan oo liskula xiriiraayo ma jiro dad marka qaraabadayda ah meesha joogo wiilal iyo dumarba isugu jira rag iyo dumarba wiilashii ilma adeeraday ahaa ee qaraabo qansaxdayda ahaa waxaan eriyay tiri orodoo iga doono maadaama dadkaygiiba inta joogin wiilashiyaa marka waxay dhaheen maadaama gabadhan hooyadeed iyo adeeradeed iyo walaalaheed aysan halkan isli iyo Kenya aysan joogin waa in qaadiga Kenya heesto nin Soomaali sujuu inay tiri aan jeclahay ma tiri maaqaan nin adigu soo qaadiya maxkamadda waa inaa gabadha laga meheriyaa oo meherkeeda saas uu ku dhacaa okay cidii markuu iga doontay maalin maalmaha kamid ah oo la yiri soo diyaar garow ninkii la yiraahayay hadaa gabadheena rabtid maxkamadda u soo diyaar garow iyo qaadiga in laga meheriyo gabadha okay uu yiri uu aqbalay maalin anigoo iska socdo waxaa iga hor imaaday wiil wadaad ah oo qaraabo qansaxdeena kamid ah markaasuu yiri naaya Xaliimo la maxaa ka jiro inaa hebel soo dirtay oo naga ka soo doontay oo mar dhow ismehersi rabtiin markaasaan ku eriyay tiri run waaye walaalo macaanow aniga 25 sanaan jira intaasaan soo garoobeynay de horena nolol iga soo halawday inta meelaha iska taagtaagnaa lahaa ninkan haduu guri geysanayo oo mustaqbal fiican aan ka helayo waa iska guursanaa naag sideedaba waxay ku fiican tahay inay xero rageed ku jirtay inta ii dhow la cadeeyo tiri gees ii fiiri oo iri tiri ma ka fiirsatid ninka kan ma ka fiirsatid markaasaan iri tiri muxuu qabaa afaarihiisa siimo uusan gelin wuxuu yiri okay hadaa ku qanacsan tahay oo iska soo hubisay oo anigu waxaan ku leeyahay iska hubi adigu iska soo hubisay oo aaba aqoon u leedahay ma fi mushkil waa lagu daraa okay waxaa la gaaray tiri ninkii horta markuu erayadaas igu soo yiri
aan su-aal isweydiiyey tiri naaheedha xaliimooy ninka kan waadigi necbaa oo musqul soo urtay oo kale sanka uga qabsan jiraye walaalay gacalisoy maxaa ninka ku jeclaysiiye naa ninkuma balaayo kugu soo akhri naa ninkuma ku sixra siday wax u jiraan markaasaan adkaar inaan akhristo aan bilaabay tiri ninkii haddaanba adkaar akhristay maba rabay tiri waaba nacaba maba rababa ninkan aanba soo taaganay tiri anigoo ninkii sidii markaa adkaar u akhristana qalbigayga uu ka go'ay oo aanan rabin waxaa la gaarayay tiri xilligii aan ku ballanay in aan ismeersano haddana waxay tiri waa iska ogolaaday markaan iska ogolaaday waxaa lagu ballamay meeshii meherka uu ka dhici lahaa ee qaadiga uu joogay waa baxnay aniga iyo dadkii qaraabada ah ay imeheri lahaa asagii iyo dad ilmo adeeradiisa ah oo markaasi asaga dhinaciisa kasoo jeeda meeshiyaa la tegay meeshii markii la tegay ee la fadhiistayay tiri maama xaliimo oo la iga sugaayay in la meheriyo aan qalbiga waxaan ka leeyahay tiri alla qaadiga maa ku dhahdid ninkan ma rabo maba rabo waa necbahay ma arki karo laakiin ila meesha waxaa ka qoranay tiri neeceeb xun aa u qabaa markaasaa qalbiga waxaan ka leeyahay tiri alla hadda maa dhahdid meherka hala joojiyo yaana la imeherinin alla ninkaan amaadan fiicnayn inaa ku degdegtid ama ninkaan ma rabtid alla ninkaan ma rabtide amay fiicantaa inaa ka joogtid waxay tiri wax gudahaaga ku jira oo qalbigaaga ka guuxaaya weli ma aragtay tiri adigu saasaan ahayay tiri afkii inuu hadalkii soo tufo oo go-aan uu qaato uu dhaho ninkaan ma rabo aan rabaayay tiri sida qof riyo ku jiro riyada inta shaydaan iyo balaayo soo weerareen hadalkii inta lagu dhajiyey uusan xataa adkaarta akhriso karin camalaa ahay tiri dadkiyaa sidaa asaf ugu jiray tiri qalbigana waxaan ka leeyahay hadal oo waxaad tirahdaa ninkaan ma raba dheh ileen waaba ujeedaaye ninkaan naceeb dhaafaa u qabtaa ma rabtide meherka ha ogolaanin maama xaliimo maadaama ninkan aysan rabin oo qaadigii hortiisa meheri lahaana la hor fadhiyo may hadli doontaayoo hadalkuma ka soo fuqi doonaa oo ma dhihi doontaa ninkan ma rabo may mehersa doontaa nuucuu ku noqon doonaa maadaama ay tiri show ninkan waaba ninkii Soomaali u xumaa la soco qaybta labaad.